ولا الله ياك ساك وحن فيه إني أرن هلك كذا عضي ما ننتي ثلاثة أبي نمدي أيها وحلا كلي أجاسمه محكمة السرة مرحوم مرسل عمر عثمان واحد لي نكبتنا نبت فقدها قافوا تناول كيسي خاص كهاية وحلا قد لي بس صلاة شرعية السن والدولة دولة هذا هاي نبت فقد دولة هذا هاي قافوا قاعد يسكون نكاس صاحب الله مرسل باق عنده كواي مركي ودلي وعرري كل قافوا بكرة أنا هاو ولا شيء مرسل يقول أنت يسوي منا هكيكو بعد أي قصة كنا كنا عضو وعكوري الله عون حريستي مرحوم إكس حلبان يوسف دليل وحلقي حسن الشيخ مدحتويا لغا soo dilay baabuurtii lagu dilay madaxtooyada gudeeda ay taalay kana markii la dilay mursal afka la geekaaji koonfur afrika Soomaalida lagu gaajaba la gubaa koonfur afrika noo tahay maanta muqdisho anaga hadda ma isaaqnaay maydkayagana waanu qaadanaynaa hargeysaanu la tagaynaa inanka yar ra'iisul wasaaraha mursal khayr beebega afrika ka saaran ilaadada xamal ma دنا موريا دنا ما عمو دلا مقدسة ما قرينا تكايسة تامها وحويان معمل كسومالي لأنه وحكو أصلنا سيا وقول سيا بدن إلى موجود صدران ديارو أنا ما يفكر في هذا الباقي وبالله توفيق dhawaan ayay ahayd in markii lagu dilay magaalada Muqdisho agaasimihii guud ee maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya booliska dalka Soomaaliya kadib waxa ay ku dadaaleen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa cidii ka dambeysay iyadoo qof loo soo qabtay inuu isagu ka dambeeyo dilkaasi taliska booliska dalka Soomaaliya ayaa soo bandhigay ninka eeda loo haystay dilka agaasimaha Maxamed Cabdinaasir Ayaanle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray fianu hadlay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Qaasim Axmed Roble oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ku guuleysteen sidii ay u soo qaban lahaayeen ruux ay sheegeen inuu dilay agaasimihii maxkamadda sare ee dalka 9kii bishan afyaan Qaasim Axmed Roble ayaa sheegay in shakhsigaasi uu qirtay isaguba dilka uu u geystay marxuumkaas sidoo uu dhaqsiyaha badanna waxa uu sheegay in cadaaladda la horgeynayo ugu horeyntii waxaan rabaa inaan halkan ku soo bandhigo gacan ku dhiigle Faarax Cali Nuur Xayle oo dilay agaasimihii maxkamadda sare ee qaranka ninkaas waa gacan ku dhiigle isaga ay dhinac fadhiya waa kan oo dhinaciigu fadhiya asaga xaqiijinaya asaga qiranaya asaga ogol ciidanka amnigu waxay ku guuleysteen in ay soo qabtaan markii uu dilay ka bacdi goobtiina uu ka baxsaday ciidanka iskaashi ay sameeyeen ciidanka amniga ayaa lagu soo qabtay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana maxkamadda loo horgeynaya haddii Ilaahay idmo haddana gacanta waxa ku haya ciidanka booliiska waad u jeedaan halkan dhinacayga uu fadhiya waa ninkan weeye Allah u naxariisto walaalkeen agaasimihii maamulka maxkamadda sare ee dalka marxuum mursal Umar Cusmaan ayuu dilay taariikhdu markii ay ahayd 9kii bisha shanaad ayuu dilay waa sida ugu haboonaana loo geenayaa ugu dhaqsiyaha badan baa maxkamadda loo geenayaa ciidanka amnigu iskaashi fara badan oo wanaagsan oo taliyaha ciidanka booliisku uu hormuud ka yahay ayuu ayaantan magaalada Xamar ka waday iskaashigaas si fiican buu u dhacay howlgallo fara badan baa la fuliyay dad fara badan baa lagu qabtay oo maxkamadda la horgeeyay oo askar iyo shacab isugu jira waxa arintaas hormuud ka ahaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Faarax Cali Nuur Xayle oo ku eedeysan falka dilkaas ayaa isna sheegay inuu geystay dilka ehelada marxuumka ayuu ka dalbaday inay cafiyaan dilkaas aniga geystay ninkan horta nin iga dheer ma ahayn nin walaalkay aniga guri isla deganahay oo ceesh wadaagna oo ahay ma fahant wixii qadarta hadii dhicirtana qofka celi karta mar sheedaanana arrinkaas ka taliyay waxaan haddana ka codsanayaa dawladda Soomaaliyeed iyo inta asaga la dhalatay eheladiisa iyo macal ummadda Soomaaliyeed asaga taqeen inay cafiyaan asagana naxariista jan Ilaahay geeyo
macna nin kale ana wada muranay marka ninkii kale inta u socday asaaka soo soo maray xabadii markaas ugu dhaceen waxa daawo anaga naga dhaxaysa ama godob asi igala dhaxaysan ma aanay jirin waxaan ka codsanayaa inta la dhalatay biisa ahaada oo uu sareeyo ilaa wixii la dhashto dhan inay yacafiyaan maadaama ninkaas walaalkay aniga gacanteeda oo sababsaday maxamed cabdinaasir ayaan Universal TV muqdisho.